maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkooda ee qaybta lixdanaad ee geedka xukun dilay kiradii eedeysane madani cabdi maxamed ali oo 25 sano jir ah ku tirsan rugta booliiska ee hareerkaadii ee duleedka magaalada Baydhabo taariikhda madaxweyne isyeedkii bili koowaad 2021 kureed markii uu sahabad AK47 sujuudisu ku dhaway Shamsunur Ibrahim Meelaaseen ka dhimatay sida xukunkiisu ka dhawaaqow gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkooda ee qaybta lixdanaad gaashaanle sare aadan Abuukar Maxamed waana sidan taariikhda markay ahayd 18 bishii 2021 saacaduna ee 10 subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad qaabaadkii loo haystay eedeystane madani cabdi maxamed ali 25 jir ah ina abshiro maxamed ibraahim yare ku dhashay degan Baydhabo ka tirsan rugta booliiska hareerkaadiyow kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay in uu si bareer ah oo uu la kaco u dilay marxuumad la oran jiray Shamsunur Ibrahim Maxamed ina aamino Maxamed Xasan kadib markii uu hal xabo AK47 wajiga ugu dhuftay isla goobtiina ay ku geeriyootay marxuumadda dilkaas oo ka dhacay kontaroolka hareerkaadiyow degmada Baydhabo taariikhda markay ahayd 18 bishii koowaad 2021 maxkamadda markay aragtay dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadii uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayadda 178 suuratu al-baqara aayadaha 33 45 suuratu al-maa'ida iyo qodobka 434 xeerka qaybta Soomaaliyeed iyo qodobka 19 xeerka qaybta ciidamada qalabka sida markay ay dhageysatay qiraalkii maxkamadda horteeda looga qoray eedeysane madani cabdi maxamed ali oo uu ku cadeeyay in uu marxuumadda gacantiisa ku dhimatay kadib markii ay ku dhacday xabad uu ka riday qori AK47 oo uu asagu ku shaqeynayay markay dhageysatay marqaatiyaasha la horkeenay maxkamadda horteeda midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda ka cadeeyeen in marxuumad Shamsunur Ibrahim Maxamed gacantiisa ku dilay eedeysane madani cabdi maxamed ali kadib markii uu wajiga kaga dhuftay xabad uu ka riday qori AK47 oo asagu watay markay aragtay sawirkii laga soo qaaday meydka marxuumadda iyo qorigii uu dilka ku geystay eedeysanaha markay dhageysatay gabagabadii xeer ilaaliyaha oo ahayd in eedeysanaha lagu xukumo xukun waafaqsan shareecada islaamka iyo qaanuunka dalka u yaalo markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fududeeya markay aragtay doodii qareenkii ay qabsadeen ehelada marxuumadda oo ahayd in eedeysanaha lagu xukumo qisaastii marxuumadda uu dilay sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dambiile gacan ku dhiigle madani cabdi maxamed ali uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo oogay waxaana ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad Shamso Ibrahim Maxamed cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furay in ay rafcaan ka qaataan wabillahi tawfiiq Faisal Daa Hussein warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo.